kulanti wanaagsan khiyaarteena ku soo dhawaada tabin kale sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta qodobada tabinteena caawa waxa ugu waaweyn markaana aad kaga bogan doontaan umuro dhowr oo ku saabsan dunida kubadda cagta oo ay ugu horeeyaan Isaac oo isagu afka furtay ugu dambeyn wiilkii Liverpool xaalkiisu waa sidee maxaa haysta markaasi sheekooyinkii ugu waaweynaa hardanka Ballon d'Or oo la soo saaray iyo waliba Arsenal ugu dambeyn war farxad la helaysa sidoo kale nadiga kubadda cagta Liverpool ma ka tagaya Kanouté mise waa sii joogi doona war farxad leh oo sidoo kale Barcelona u soo yeerayaan sidoo kale ku haya xidigii Arsenal haligii Thierry Henry oo isagu booqday nadiga kubadda cagta Tottenham iyo waliba markaasi taalada cusub ee loo dhisay wax badan baan kaaga hayaa isla markaana aan ku soo gudbin doona soo dhawaada meel kasta oo joogtaan channel subscribe saaro si share garay saxaabadina la wadaago muuqaalka like ku dhiirigeliya aad u mahadsantahay kaga mahadcelinaya si aad ugu xirantiin barteena xulka qaranka wadanka Portugiiska isagu waa diiday play-off iyo qataata kale inuu galo mondialka dunida ayuu toos isagu isaga xaadirinaya wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in Armenia inta ay qabteen iyagu meel ay saareen sida kelmadu macno u leedahay waxa lagu leeyahay Portugiiska kaambiyadii horeba 5 gool buu isagu sii daayay war 7 bakoorad baa la sii dhaafiyay kuwan bakoorad baa la sii dhaafiyay reer Portugal wuxuu ku leeyahay anagu waxaan badoonaynaa Ronaldo la'aan in wiilashan ciyaar waana sax runtii ilmahan hadii Ronaldo te kuma ciyaari karo waa legend lagama shakin karo laakiin in la soo yareeyo waqtigiisa ma habeen kasta line-up isagu marka kulan kasta uu isagu rabo inuu dhaliyo 20 daqiiqo 15 daqiiqo kulan kasta laga siiyo laakiin qaybta dambe ha noqoto waqti la go'aamiye ha noqoto markaas laakiin isagu hadii uu dhaqmayo 30 sano ka hor ama 25 sano ka hor sidoo ahaa maanta ma ahaan karo mana joogi kara marxaladaas sidaas daraadid wuxuu u baahan yahay cid la taliso jihaysa markaasi waxa lagu leeyahay marka Gabriel Vega baa dhaliya Dani Ramos baa dhaliyay xidiga Neves baa 2 gool raacsaday Bruno Fernandes baa hadana marka hat-trick dhaliyay kadibna warka dabaaldegaas baa marka ka dhacay marka 2 penalty Ronaldo qaadan lahaa hadda Bruno ka daqiiqa markaasi markii loo dhiibo isaga dhalinaya marka reer Portugal wuxuu ku leeyahay anagu waxaan rabnaa koobka dunida hadii la rabo in lagu soo daro squad laakiin ha noqdo laacibkan kursiga keedka mid ka soo kacaya daqiiqada la siinayo daqiiqadahaas odagu marka wixii uu hela calafkiisa uu soo ku qaadanayo laakiin habeen kasta nin raba line-up inuu ciyaaro isla markaana raba in kulan kasta uu isagu dhaliyo daadii 22 30 marka xataa kuma jiro 40 sano baa laga hadlaya sidaas daraaddeed isaga daryeel u baahan isaga ayaaba daryeel u baahan isla markaana intaas oo kulan in lagu gubin ay tahay marka kima yeelay wuxuu ku leeyahay anigu mar kasta oo ciyaaraya marka reer Portugal qoortooda isugu jiraan mana raba inay ka careysiyaan mana rabaan hadana iyagu inay ku baaba'aan marka meesha Messi waa taariikh weyn oo dunida kubadda cagta ninkan isagu waxa saacad mar walba isagu sheega dadka koobka dunida markuu ku guuleystay waxa waaye dib badan ma haysto inuu iska badanaysto gurba hada laakiin qorshe cusub oo hadda la keenay oo Messi la yimid marka wuxuu rabaa inuu ku guuleysto koobka dunida markaas koobka dunida ayuu rabaa inuu ku guuleysto marka runtii waa ajiib koobka dunida ayaa lagu leeyahay waa uu rabaa mar labaad oo waliba markii labaad oo xiriira ay noqon doonto hadii Messi taariikhdaas uu isagu la sameeyo Messi hadii xidigiisa uu isagu taariikhda la sameeyo World Cup-ka markii labaad bay noqonaysaa runtii ay ku guuleysanayaan marka oo Mareykanka iyo Canada iyo Mexico lagu qaban doona Messi waxa leeyahay ninkii iskuulana wada fariisteen wuxuu isku raacay istaraatiijiyada ninkan inuu noqonayo ama laga dhigo back to back World Cup inuu ku guuleysto marka laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool Alexander Isaac ayaa ka hadlay kooxda Liverpool waxay u baahan tahay Liverpool iko ayaa daabacday dabcan wuxuu yiri anigu xaaladeedu markii hore ma fiicnayn hadda laakiin waxaan marka rajaynayaa in kulamada soo aadan ciyaar way marka la ciyaar dhigta baa lagu dhuftay hadana wuxuu rajaynayaa kulamada soo aadan inuu helo chance marka isaga iyo Gyökeres baa u jooga meeshan Yeelanga iyo waxa soo qaban laayin gadaal bay ka duleeshaa kooxdu marka wiilka reer Liverpool niyo jabu marka ka muujinaya nadiga kubadda cagta Liverpool wiilkeeda Verts aabihi baa soo hadlay wuxuu yiri war meedin sheega wiilkayga rekooradiisa hadii la eego rekoor fiican way buu kali inuu dhaliyo inuu caawiyo baa ka dhimane wax kale kama dhin aan ku weydiiyay in la dhaliyo in la caawiyo maxaa kale ka horeey macna adiga center back ma tahay marka ninka saddexaad oo baas bixiye ahay
hadaadan adigu soo muuqanayn maxaa lagu qaban karaa nadiga kubadda cagta Real Madrid wiilkooda Franco Mastantuono waxaa si cad u soo go'aansaday inuusan qalliin maraynin oo halkii uu ka dhaawacmay mandiqatul caana la yiraahdo uu ka dhaawacmay Publica mandiqadaas ay isagu dhaawac ka soo gaaray ugu dambeyn waxa la tilmaamayaa inuusan qalliin kala galin marka cilaaj dabiici qaadan doono marka si balance loogu sameeyo marka murqaha caloosha iyo waliba markaasi hareeraheeda marka hoos markii loo dagaba marka ninka waa la eegi doonaa markaasi waxa lagu leeyahay ninkii Thierry Henry waxa uu booqday garoonka cusub ee kooxda Tottenham wuxuu yiri wax qariib ah garoonka hore uma soo booqan buu yiri wali waxaan hore booqan jiray garoonkii hore in badan waan ku guuleysan jiray waliba xataa taaladii Arsenal buu isagu tagay ay u dhistay marka taaladaas baa markaas isagu goolkii Tottenham uu ka dhaliyay ayaa laga dhigay taalada dhamaydba uu dabaaldeg ahaan una ku soo muujiyay marka maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona waxa leeyahay hadii ay marka kala tagaan ama uu diido Hansi Flick sida hadda kooxda inuu ku shaqeeyo oo go'aansada xiliyaareedkeen uu baxo xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in la yiraahdo waad mahadsan tahay Jurgen Klopp baan raadinayna marka Barcelona waxay rabtaa in Klopp iyagu ay raadsadaan hadii ninkan ay lumiyaan sida kelmadu macna u leedahay ninka hadal lumisan Klopp hada Klopp daawayn badan ma Klopp marka Manchester United ayaa saacad ugu sheegtay Barcelona inaysan doonaynin Rashford in lagu soo celiyo Amorim ayaa miiska u garaacay sida ay sheegtay shabakada Dario Sport ee Catalonia laga leeyahay Sport waxay ku waramaysaa maamulka Manchester United oo hogaaminayo Ruben Amorim inuu ku yiri wad mahadsantiin waxay lacag bixin kartaa bixiya waliba United warkan waa farxad gelinaya Barcelona warka United ka yimid sababtoo ah hadii lagu yiri waxaad bixin kartaa bixi laakiin anagu waa noo keenay dib aan ugu soo celin ninkan marka waa fursad iyo jaanis weyn runtii markaas ninkan lagu leeyahay ama lagu muujinayo in xal kale uusan ka furnay marka waan arki doonaa xogii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta marka Liverpool iyo Real Madrid baa laga hadlaya horta wararka qaarkood waxa qortay shabakad marka Defensa Central yiraahdo shabakadu waa Madridista mar walba adiga wixii Madrid ay rabto ama maslaxada ay ku muujinaysaa mooyaane war dhaxdhaxaada ma keenayso marka sidaas daraadeed warka ay qortay waa Gravenberch iyo waliba Camavinga ayaa la isku bedelanayaa ama dhici karta in la isku bedesho beelada markaas waxay tilmaamaysaa in Camavinga iyo Mastantuono Camavinga iyo waxaan ula jeedaa Gravenberch in noqdaan xidiga la isku bedelanayo markaas marka waan arki doonaa hardanka abaalmarinta Ballon d'Or oo soconaya hadii la yiraahdo Arsenal yaa ugu mudan sanadkan liiska ragga ku jira waxa kamid ah Mikel Merino kaasoo wacdareynaya ma lagu soo qariyay meesha mucaaradka dhan waa qiilinayeen marka ninka rekooradiisu weeryahan buu isku bedelay weeryahan ayuu noqday fiiri Haaland horta ninka ugu dhow waa Mbappe iyo Haaland saas baa loo hardamaya Mbappe wuxuu rabaa isagu inuu qaado si lamid ah Haaland marka Kane waa ku dhageeyay sanadkan inuu qaado buu rabaa warfar hadlaya u soo yeeray kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal waxaan leeyahay Ricardo Calvario sida Fabrizio isagu sheegay Ricardo markaasi Calavori diyaar waa kulanka soo aadan Arsenal ciyaari doonto Spurs diyaar buu noqon karaa sida uu sheegay Fabrizio Romano wuxuu leeyahay ninkan waa diyaar lagama walwalayo sida kelmadu macna u leedahay shirkada kale cajiibka adiga iyo anigaba naga yaabinaysa waxa kamid ah nadiga kubadda cagta Liverpool wiilkeeda Ibrahim Kanute ka waran baa heshiiskada waa dhacaya Liverpool ma ka tagaysaa waa ka tagaya oo kale markaasi ka soo qaad adigu wuxuu yiri warar badan waa laga qoraa buu yiri ma garanayo meesha ay ka yimaadeen marka xogaas meesha laga helo wakiiladooda hadda Liverpool bay la hadlayaan waxaan rajeynayaa decision ma dhihin heshiiska inaan ku daro wuxuu yiri waxaan rajeynayaa decision dhawaan inaan sameeyo inaan qaato yani hadaadan decision inaad joogtid qaadaninba Liverpool maxaa lagu hadlayaa maxaad ka wada hadlaysaan sababtoo adiga waxa rabtaa Soomaa decision ma qaadaninba inaad joogayso inaad bixisid midna ma ogid waay Liverpool ula hadlaysaa marka taas ugu tusinaysa marka iyaduna in culays halka uu ka jiro marka dhawaan baan sheegi doonaa buu yiri go'aankayga
maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ku farxay Juan Garcia inuu soo noqon doono marka international break kadib. ninkan ayaa hadda diyaar noqon kara isla markaana waqtidii ugu dambeeyay waxa uu ku maqnaa qaliin isagu maray isla markaana Juan Garcia waa available Barcelona after the break kulamada xulka kadib waa diyaar sida xogii ugu dambeeyay sheegayaan. marka de masalana mana fududa sida kelmadu macno u leedahay. marka waan sugi doonaa. waxa lagu leeyahay ugu dambeyn Ronaldo iyo Messi ayaa ku tartami doona abaalmarinta Super Ballon d'Or. abaalmarintan ayaa la bixin doonaa sanadka 2029 sida xogii ugu dambeeyay tilmaamayaan. Messi iyo Ronaldo ayaa ku tartami doona abaalmarin saalniin. yaa la siin doonaa waa halkeeda Super Ballon d'Or baa leedahay. Ballon d'Or buu haystaa malaha Messi ugu darayaan mise Ronaldo siinaya lama garanayo. haddii Ronaldo qaado koobka dunida sanadka soo aadan dee hala siiyo, laakiin haddii uusan qaadin Messi inuu aadi doono bay noqonaysaa. marka waan arki doonaa adigu maxay kula tahay si shar gareys habad la wadaaga.